murashax jaamac yuusuf cali oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa saaka waxa uu degmada Axmed Dhagax ka sameeyay wacyigelinta diiwaangelinta kaadh qaadashada isagoo oo garaacayay guryaha kuna wacyigelinaya inay qaataan kaadhka diiwaangelinta codbixiyaha xildhibaanka oo arrimahaasi ka waramayana waxa uu yidhi si fiican bay u bilaabantay si fiicanna way u socotaa kuyadiina waa kuwaas oo way shaqaynayaan dadka isdiiwaangelinaya waxay u badan yihiin dad yaryar oo qaan gaaray waxaana u muuqataa hore inay dadka waaweyn u qaateen badankoodu iyagu qudhooduna way shaqaynayaan kulli waa maalintii ugu horeysay meelaha dhowraba goobo badan bay ka jiraan cilado insha Allah saan hore uga baranay balgubadlo oo kale beritoole ayaa hawsha laga shaqayn doonaa arrintaana commissionka qaabilsan ma sha Allah khayr bay noqonaysaa gooba ayaa internetka iyo xasaa adigu wax laga sheegayaa laakiin si qaar badan ima ka hagaageen marka aad bay u fiican tahay nabadgelyana waa jirtaa ma sha Allah goobahaas waxaad moodaa inay aad u yar yihiin mar walbana xaafadda way ku yar yihiin goobahaas aad bay xidhiidh u yihiin waxaan ka codsan lahayn goobo loo soo kordhiyo xaafadda sideedaba